الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادة برنامج كمعالك تيفيك أو كذا وتان تلفزيون كقرن كجمهورية الصوماليلان. وحن هنتي ما تكهد لدونا موضوع عصب وحويان ماملك يا مارنت. هروح نقص هذا الله أرضي وناكسن سيفوين كوليه. وحن كلا قص هذا الله معالك في عن يسيفوين كوليه. وحن كلا قص هذا الله معلنك حقوقda uu leeyahay macalinku waxaan kala ka soo hadalnay qishka imtixaanaadka iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin hadaba darsigeenan maanta wuxuu ku saabsan yahay maareynta nafta ayuu ku saabsan yahay si gaar ah maanta waxaan uga hadlaynaa qorsheynta nolosha sideebad u qorsheynaysaa noloshaada planning waxa loo yaqaan qorsheynta ayaan maanta aynu ka sheekeynaynaa waxaan ognahay in badan oo dadkeena kamid ah maanta ma garanayaan meel ay u jeedaan qorshaha noloshooda ma garanayaan in badan oo dadkeena kamida waxa laga yaabaa inay dadaalayaan waxa laga yaabaa mustaqbal fiican inay rajeynayaan laakiin se waxa laga yaabaa meeshu u socdo iyo sida ku socdo iyo qaabku u socdo iyo mustaqbalku isleeyahay gaadidba inaana islahayn waxaad arkaysaa in badan oo dadkeena kamida oo run ahaantii dadaalaya oo runtii qaarkood akhrinayaan kutubta horumarka keenaya laakiin se halkoodii taagan oo dhaqaaqeen waxaad arkaysaa in badan oo dadkeena kamida oo runtii raba inay kor u socdaan oo laga yaabo qorsheelo inay dejisteen laakiinse markay xoogaa wadeen ay dhowr usbuuc wadeen ay laga yaabo halkeena ku joojiyeen oo haddana halkooda ay ku soo noqdeen waxaad arkaysaa in badan oo dadkeena kamid ah oo ku mashquulsan muxuu ahaa hawl maalimeedka ku mashquulsan laakiinse raba inay kor u socdaan mustaqbal inay yeeshaan meel inay gaaraan laakiinse maalin kasta ku mashquulsan hawl maalimeedkiisa mataa gaarka ah ku mashquulsan oon garaneen meel u socdo iyo sida u gaadhi lahaaba run ahaantii maanta waxaanu ka hadlaynaa qorsheynta nolosha ayaan ka hadlaynaa sideeba daawada u qorsheynaysaa noloshaada u qorsheynaysaa qorshaha marka laga sheekeynayo waa laba qaybood mid waxa weeye noloshaada iyo naftaada sidaad u qorsheyn lahayd sidaad u gaadhi lahayd meeshaad higsanayso sidaad mustaqbalkaaga u wanaajin lahayd qodobka kalena waxa weeyaan sida businesskaaga ganacsigaaga aad u qorsheyn lahayd laakiinse maanta waxaanu taabanaynaa in qorsheynta nolosha ayaanu ka hadlaynaa qorsheynta marka laga sheekeynayo jaamacadda Harvard University la yiraahdo ayaa research ayaa waxay sameysay in kontonaadkii sanadkii qarnigii hore ay research ay sameeyeen 100 arday oo ardaydii markaa qalin jabinaya sanadka ugu dambeeyay ayaa runtii research ay ku sameeyeen 100ka arday waxay weydiiyeen su'aal bay weydiiyeen waxay ahayd maxaad rabtaa inaad noqoto 10 sano maxay ka bacdi maxaad rabtaa inaad noqoto ardayda dhamaantood waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inaan mustaqbal yeelano inaan runtii lacag yeelano inaan runtii dad caana noqono inaan runtii mustaqbalkayga wanaagsanaada ayaan rabnaa laakiinse waxa soo baxay 10 arday oo kaliya oo 100ka kamid ah ayaa qoraal ka dhigay waxay rabeen qorshay lahaayeen qorshahooduna qoraal bay ku hayeen waxay ardaydaasi sheegeen iyagu qorshahooda ay rabaan inuu qoran yahay waxaana ay rabaan jaamacaddu waxa ay sameysay 10 sano ka bacdi ayay ardaydii dib u dabagashay research ba ardaydii lagu sameeyay 100kii arday waqtiga qalin jabiyay bal waxa la isweydiiyay tolo maxay ku dambeeyeen waxa soo baxay ardaydii markii la eegay xaaladda ay ku noolaayeen xaaladoodu dhaqaale marka la eegay waxa soo baxay dhammaan 100kii arday marka la isu geeyay hantidoodii marka la isu geeyay 96% 9 kamida muxuu percent muxuu ardaydii hantidoodii kamid ah waxa yeeshay ardaydii 10ka ahaa ee qorshaha sameeyay baa yeeshay macni hantidoodii oo dhan marka la isku daray ardaydii 100kii arday hantidoodii marka la isku daray 96% waxa iska yeeshay 10kii arday ee qorshaha iyagu sameeyay intii kale maxay yeesheen intii yareeda soo hadhay ayay runtii hay yeesheen 6% igi soo hadhay marka halka maxaa kaaga soo baxaya waxa kaaga soo baxaya qorshe inaad naftaada u sameysaa in qodob aad u muhiim tahay hadaba qorshaha markaan ku hadlayno nolosha waxaan ku soo qaadan doonaa 4 qodob baan ku soo qaadan doonaa qodobka koowaad aan ku hadlaynaa wax weeyaan qorshahu muxuu yahay qorshe marka laga hadlaayo haddaan si yar oo kooban kuugu sheego qorshaha ama planning wuxuu yahay oo runtii aan adadkaan lahayn wax weeyaan qorshuhu waxa weeyaan xaaladda aad ku nooshahay ee naftaadu ay ku jirto inaad marka hore hadaristo oo ogaato xaaladaada dhabta ah xaaladaada markaad ogaato haddana su'aal kale isweydiiso ah halkeeba raba inaan gaaro 10 sano ka bacdi sanad ka bacdi 5 sano ka bacdi halkeeba raba inaan gaaro taana had ogaato labada markaad ogaato kadibna aad sidaad u gaadhi lahayd aad foorgeed qabato marka qorsho wax kala maaha waa xaaladaada oo ogaato kadibna aad isweydiiso halka raba inaan gaaro kadibna sidaad u gaadhi lahayd aad qorshiso weeyaan
haddaan si kale u dhigo waxa weeyaan qorshaha marka laga hadlayo planning laga hadlayo wax la yiraahdaa saddex su'aalood oo kaliya ayaad ka jawaabaysaa waa haddaad rabto qorshe inaad samaysato su'aasha koowaad waxa weeyaan maxaan ku suganahay xaaladda aan ku suganahay iminka haddii caafimaad noqoto haddii dhaqaale noqoto haddii cibaadiyad diin noqoto haddii noqoto horumarkii kale xagga muxahay aqoonta haddii noqoto dhammaan waxa isweydiinaysaa qaab noloshaada oo dhan ba su'aal waxaad iska weydiinaysaa halkee baan ku suganahay halkee baan taaganahay su'aasha marka isweydiiso ay su'aal labaad isweydiinaysaa oo waa maxay halkee baan u socdaa halkee baan rabaa inaan gaadho bartee baan rabaa inaan runtii 5 sano ka bacdi ama 10 sano ka bacdi aan gaadho su'aasha labaad marka isweydiiso su'aal saddexaad baad isweydiinaysaa oo waa maxay maxaa i gaarsiinaya xaaladda aan ku jiro inaan ka kaco oo xaaladda aan raba inaan gaadho 10 sano ka bacdi aan gaadho maxaa i gaarsiinaya istiraatiijiyadan raacaya maxay noqonaysaa saddexda su'aalood baad ka jawaabaysaa marka laga hadlayo qorshe inaad samaysato haddaba daawada qorshe inaad samaysato waa qodob aad u muhiim ah waana laf dhabar weeyaan laakiin su'aal baa halkan taala su'aashaasi waxa weeyaan haddaba waa qodobka labaad ee waxa weeyaan maxaan ka helayaa fawaa'ida ay leedahay faa'iidooyinka ay leedahay qorshe inaan samaystaa waa maxay weeyaan su'aashu haddaba haddaan arrintaa ka jawaabno waxa weeyaan faa'iidada koowaad eed helaysaa waxa weeyaan haddii aad qorshe sax ah samaysato oo noloshaada aad qorsheyso oo mustaqbalkaaga aad qorsheyso waxa weeyaan horta naftaadii ayaad xakameynaysaa naftaadii baad controleysaa naftaadu waxay noqonaysaa nafaad gacanta ku hayso oo sideeba u noqonaysaa waxay u noqonaysaa maadaama qorshe u dejisay waxay noqonaysaa naftaadu in qorshaha raacdo wax kastoo ka leexinaya saaxiib kastoo ka leexinaya wad ka leexanaysaa sababtoo qof qorshe samaysaatay qof meel soo socda noqonaysaa qodobka kale ka faa'iideyso qorshaada samaysta waxa weeyaan kalsooni baad helaysaa kalsoonida maxaa lagu helaa kalsoonida waxa lagu helaa intaad qorshe samayso qorshihii aad fuliso markaa fulinta koowaad markaad samayso naftaadu kalsooni bay helaysaa waxay ogaanaysaa naftaadu inay wax qabsan karto meel inay gaari karto kalsooni baa kugu abuurmaysa kadib kor baad u sii soconaysaa waxa kale faa'iido leeyahay qorsheynta kamid ah waqtiga ku ilaalinaysa waqtigan ka dayacmaya ee maalin kasta laga meel uu kaaga dayacmo markaad qorshe samaysato waxaad noqonaysaa qof noloshiisa garanaya halku u socdo iyo wuxuu rabo naftaadu marka waqtiga ay haysato waxay uga faa'iideynaysaa si qorshaha u gaadhiso daawada waxaad kalood ka faa'iideysaa haddii aad qorshe samaysato inaad ogaato waa bal xaaladan aad ku socoto iyo qorshahan aad dejisay miyaad gaadhin mise maad gaadhin inaad waxaad maalin kasta qabato iyo qorshahaaga inaad gaadhin maxaa cadeynaya wax cadeynaya qorshaha cadeynaya markaad qorshe dejiso oo tiraado anigu wax weyn sanadkan waa inaan waxa qabtaa sanadku markuu dhamaado ayaad waxaad isweydiinaysaa wixii miyaan qabta haddii aad qabatana waxaad noqonaysaa qof qorshihiisii gaadhay oo hadafkiisii gaadhay haddii kalena maxaad noqonaysaa qof muxuu aan gaadhin marka qorshahan muxuu ku faa'iiday waxaad ogaatay naftaadu inay wax qabsatay in kale oo miqyaasaad ku qiyaaso wax qabadkaaga ayuu ku noqonayaa daawada waxa qorshe hadaad samaysato waxaad kaga badbaadaysaa waxyaalahan runtii tawaarida kugu soo kordhaya dhibaatooyinka kugu iman kara wad ka hortagi kartaa oo markaad qorshe leedahay waxaad isweydiinaysaa 5 sano soo socda maxaan rabaa inaan qabsado waxaasan qabsanaya maxaa iga hor iman kara waxa la wixii ka hor iman lahaa ayaad analysis ku samaynaysaa oo taxliilinaysaa saad uga hortagto marka qorshe muxuu ku faa'iideynayaa inaad ka hortagto dhibaatooyinka kugu dhici lahaa wad ka hortagi kartaa oo qof feejigan baad noqonaysaa daawada sidoo kale waxa weeyaan qorshe marka aad samaysato waxaad ka faa'iideysaa waxaad yeelanaysaa yool baad yeelanaysaa higsi baad yeelanaysaa meel aad u jeedaan ayaad helaysaa meel naftaadu hay tira halkaasaan gaaraya halkaasaan u socda ayaad helaysaa waxa la iraahdaa nolosha waxa ugu qiimo badan qofku inuu yeesho higsi iyo meel uu rabo inuu gaaro oo dabeetana arinta darteed uu u dagaalamo uu halgamo ayaa ugu fiican baa la iraahdaa bal waxa la iraahdaa qofku hadaanu qorshe lahayn hadaanu hadaf lahayn nolosha aanu ka lahayn qofkaasi fawdu nolosha ku noolaada maalin kasta warar buu ku noolaada maalin kasta walaac ku noolaada sababtuna waa maxay meel uu u socdaa ma garanayo waxa qofku markaan qorshe lahayn isagu ma isku noqonaya meesha shalay ka bilaaway ayuu dib hadan ugu noqonaya meel ma gaadhayo marka qorshe inaad samaystaa maxay faa'iido leedahay waxay ku siinaysaa tilmaam halkaad u socoto iyo higsiga ku xadidaysaa daawada markaad qorshe samaysato waxaad ka faa'iideysaa xaaladda naftaada ogaanaysaa oo sideebad u ogaanaysaa qorshaha marka la sameeynayo waxa lagu muhiimsan la sameeyo waxa kamid ah SWOT analysis baa la sameeyaa oo waa maxay wax la taxliilinaya la analysis garanaya naftaada oo waa maxay waxa isweydiinaysaa maxaad ku xoogantay waxa isweydiinaysaa maxaad ku liidataa waxa isweydiinaysaa maxaad ku fiicantay waxa isweydiinaysaa furaska ku soo socda waa maxay waxa isweydiinaysaa khatar maxaa kugu soo socda
marka qorshe markaad samaysato su'aalahaas oo dhan baad ogaanaysaa wax kastoo ku fiicantaad ogaanaysaa wax kastoo ku liidataad ogaanaysaa furaskaagaad ogaanaysaa mustaqbalkaaga cadaanaya daawada markaad qorshe samaysato waxaad runtii faa'iido u leeyahay waxa kamid ah waxaad ogaanaysaa awlawiyaadkaaga maxaa ku muhiim ah maxaad noloshan ka rabtaa waxa laga yaabaa maanta wax badan inaad qabanayso laakiin waxa laga yaabaa waxaad qabanayso qaar kamid ah inaanay marka la eego aanay muhiim ahayn baa laga yaabaa waxa laga yaabaa kuwa ugu muhiimsan inaad ka tagtaa laga yaabaa oo qaar aan muhiim ahayn aad ka shaqaynayso qorshe markaad samaysato qorshe muxuu ku samaynayaa wuxuu ku kala saarayaa maxaa muhiim ah maxaa ugu muhiimsan maxay tahay inaad qabato marka qofku wuxuu awoodda saaraya focuska saaraya shayga ugu muhiimsan ay naftiisu rabto inay qabato daawada heedhe haddii aad qorshe samaysato waxaad ka faa'iidaysaa waxaad ogaanaysaa qiyamkaaga iyo valueskaaga oo waxa la yiraahdaa qorshaha marka la samaynayo waxa kamid ah waxyaalaha aadka loo baaro qofku inuu is ogaado muxuu noloshan ku qiimeeyaa maxaa mabaadi'da aaminsan tahay waa waxyaalaha inta badan marka qorshaha la samaynayo aad loo diraaseeyo marka qorshe samaysato naftaadu waxay ogaanaysaa mabaadi'deeda rasmiga ay aaminsan tahay valueskayga ogaanaysaa sababtoo kale haddii kale maxaa dhacaya waxaa dhacaya inaad noloshan haad wax badan aad iska qabato uun laakiin hadhow kugu soo baxdo inay valueskaaga khilaafaan oo valueskaaga ay kor imaadaan tusaale haddaan arinta ka siiyo waxa laga qofku inuu jecel yahay lacag inuu helo sidoo lacag u raadinayaba waxaad arkaysaa qofkii maalintii dambe iyadoo la leeyahay carruurtaada way xumaadeen carruurtaada ciyaal suuq bay noqdeen kadibna u warwaraya sababtu waa maxay sababtu waxa weeyaan qofkan uu may cadayn nolosha wuxuu ku qiimeynaa qiimaha awlaadiisu ku leeyihiin inay way ku weynaayeen laase ismu ogeyno lacag buu ku mashquulsanaa laakiin samaata muxuu ogaanayaa lacagta ku mashquulsanaa inaan fiicnayn hay ahayd inuu caruurtiisa ku mashquulo marka arinta maxaa loola jeedaa waa inaad ogaataa valueskaaga iyo qiyamkaaga iyo waxa nolosha aad ku qiimeynayso daawada waxa kale oo ka faa'iideysaa qorshaha marka aad samaysato inaanad ku noolaanin xaaladda leeyahay xaaladda muxuu haayay emergency-ga in badan oo dadkeena ku miday waxa ku nool xaalad emergency oo waa maxay subaxii buu soo kacaya waxa la oranayaa waxaas jira kaalay halka qabo hebel baa ku soo wacay maalinta leel wuxuu qabanayaa waxaanu hore u qorshayn bari buu hadina soo toosaya isla emergency-gaas ku jiraya waxaan kaalay qabo halka tag hebel baa marka maxaa la rabaa waa in noloshaada noqoto waxaad nidaamiso bari waxaad qabanayso waana sii qorshaysaa bishan waxaad qabanayso waana sii qorshaysaa sanadkan waxaad ugu tala gashay waana sii qorshaysaa haddii kale waxaad noqonaysaa qof emergency oo ku noolo maalinba meel looga yeedho haddaba intaa haddana kaga baxno faa'iidooyinka uu leeyahay inaad qorshe samaysaa su'aal kale oo aad muhiim ah halkan taala taasina waxa weyn waa qodobka saddexaad ee su'aashaasi waxay tahay haddii qorshuhu si u fiican yahay sidaa sheegtay muxuu ahaay macallino maxay dadku u qorsheen waayeen maxay dadku qorsheeyal u sameeysan waa su'aasha meesha taala dadka qorshaha inay sameeyaan waxa ka hortaagan dhowr arrimood baa ka hortaagan koow waxa ugu horeeya dadka qofka oo baqanaya dadka intooda badan markaad eegto qorshe inuu sameesto uu ka baqanaya oo muxuu ka baqanaya wuxuu ka baqanaya ku fashilmo wuxuu isleeyahay haddaad qorshe samayso ood waqti geliso oo haddana qorshahaasi socon waayo ood ku fashilanto waa niyad jabaysaa xaaladaadu soo way ka sii daraysaa iska dhaaf markaas wareerina bal waxa laga yaabaa qofkaasi inuu hore qorshe u sameeyay hay naftiisu la qabsan kari weeday oo fulin kari weeday marka uu isleeyahay war horeba waad ugu fashilmaya ma fashal kalaad rabtaa taasi waa qodobada inta badan dadka ka hortaagan laakiin qodobka waana jabisaa waa qodob aad u muhiim ah bal fashilka marka laga hadlaayo waxa la iraahdaa dadku waxay ku kala duwan yihiin qofna markuu fashilmo halkaas uu istaagayo dib u gurtaa qofna kor buu uga kacaa waxa la yiri sifada ugu muhiimsan ee dadka guuleysta ay leeyihiin waa maxay fashilka ka faa'iideystaa markuu fashilmo isweydiiyo sababta uu fashilmay kadibna muxuu sameeyaa sababta dawadeedii buu kana kadib uu ka gudbaa dib uu ma soo eego marka waxa laga rabaa halka inaan istaagin arinta labaad ee keenta dadku inaan sababsan qorshe waxa weeyaan qofka oo runtii aan aaminsanaynba inay muhiim tahay qorshe la sameystaa dadka intooda badan baa waxay kooranayaan maxaan qorshe u samaysanaya hebelba waa taajiro qorshe waa muu samaysanay arinta markaan ka hadlayno waxa la yiraahdaa arintaasi ma sax waa sida waxay la mid tahay qof yiri sigaarka anigu ma joojinayo sababtu waa maxay aabahiba 50 sano sigaar cabay walina kuma xanuunsan waa isku doodun labada qof weeyaan labada qof jawaabtooda waxa ay tahay lama qaato marka waxa laga sheekeynayo dadka maxay exceptions ka lama qaato dadka lama qaato sababtu waxa laga yaabaa qofka bila qorshe ku socda dhibaatooyin badan inay soo gaareen laakiin qofka hadduu qorshe sameeyo dhibaato ku soo yaraanay
qorshuhu at least marka wax kasta laga tago wuxuu ku yareynaya qarashka uu ku yareynaya wuxuu ku yareynaya waqtigii ka galay uu ku yareynaya oo marka qorshe samayso wuxuu ku yareynaya juhdigii ka galay uu ku yareynaya wuxuu ku yareynaya dhammaan wixii meesha kaaga bixi lahaa ee waqti iyo juhdi iyo shaqaalaha si yaro kooban baad ku gaaraysaa marka qorshe leedahay marka aanad lahayn halku waqti dheer ka qaadan lahaa oo juhdi badan ka gali lahaa qodobka saddexaad ee keena inta badan dadku inay fashilaan inaanay dejisan qorshaha waxa kamid ah qofka inta badan ku nool wax la yiraahdo dib u dhigitaan shaqadiisoo dib u dhiga taswiifka wax la yiraahdo bari baan qabanaya saada man qabanaya saa ku man qabanaya dad badan oo kamid ah dadkeena wax laga yaabaa inuu sidaa ku nool yahay oo qorshaha uu jecel inuu dejiyo laakiin dib u dhigaya bari baan qabanaya saa dambe sidaa ugu jiro ay laga ku dhinta laga yaaba marka qodobkaas waxa la yiraahdaa khatartiisu uu leeyahay sababtu waa maxay khatarta uu leeyahay waxa la yiraahdaa guusha marka laga sheekaynayo haddaad maanta ogaato qofkaasi wuxuu noqonayo 10 sano ka bacdi haddaad rabto inaad ogaato hal su'aal ma isweydiinaysaa maanta qofkaasi muxuu qabtaa maanta waxaad qabanayso ayaa waxay cadeynaysaa 10 sano ka bacdi waxaad noqonayso maanta haddaad fadhi tahay oo fadhido oo shilan qabaneen bari 10 sano ka bacdi waxa ay muuqanaysaa inaad fadhido ahaanayso waxba aanad noqonin laakiin maanta haddaad halgamayso aqoontaada kor u qaadayso diintaada iyo akhlaaqdaada had wanaajinayso reerkaaga iyo ummadaada had dhisayso bulshada had waxtar u leedahay waxa ay muuqato 10 sano ka bacdina sidaas inaad noqonayso marka waa muhiim inaad iska joojiso dib u dhigtaanka wax la yiraahdo qodobka kale ee inta badan dadka ka hortaga qorshaha inay sameystaan waxa kamid ah waa sabir la'aanta qofkii qorshu sameynaya wuxuu rabaa degdeg wixii markiiba inuu ku gaaro taasna suurtagal maaha waxa weeyaan wax loo baahay sabir baa loo baahay sugnaansha loo baahay inaad ku sabirto waxaan qorshaad ugu tala gasho ayaa runtii loo baahay oo runtii isku daydo inaad u adkaysato oo la qabsato oo la wado qodobkaasina runtii aad buu muhiim yahay runtii intaas haddaan halka kaga baxno qodobka muxuu halkan u galina waa qodobkii afraad qodobka afraad muxuu tilmaamayaa qodobka afraad wuxuu tilmaamayaa qorshaha wanaagsan shuruudu leeyahay waa maxay qorshahaas inuu wanaagsan yahay marka qorshe raba inaad samaysto shuruuday tahay in laga helo waa maxay koow shardiga koowaad waa maxay qorshaha sameynaysa waa inuu ku saleysan yahay shay waaqici oo dhab ah waa ku saleysan yahay waa inaanu khiyaali ahayn qorshe markaad sameynayso shay khiyaali qorshaha ka dhigan waxaanad gaari karin mustaxiila qorshaha ka dhigan qorshuhu waa inuu wax macquul oo aad gaari karto waa inuu yahay markaad naftaada eegto imkaaniyaadkaaga eegto dhaqaalahaaga aad eegto dhinac kasta iska eegto waa inaad tirado qorshaha waan gaari karaa laakiin shay mustaxiil ah oo aad gaari karin qorshaha ka dhigan sababtoo aad ka dhigato intaad samaysato aad ku fashilmayso haddaba su'aashu waxay tahay waxa weeyaan waa sideeba muxuu haayo shaygu u noqon karaa shay aan mustaxiil ahayn waxa la yiraahdaa qorshaha marka sameynayso qorsho horta waa inuu yahay shay la gaari karo koow at the same time waa inuu yahay wax adag in la gaaro sababtoo lama rabo qorshe yar oo fudud oo jilicsan markiiba aad gaari karto inaad samaysato lama rabo wax la rabo qorshe naftaada ay kiciya oo kor u kiciya oo hiigsata la raba marka waxa la yiraahdaa qorshuhu waa in la gaari karaa waa sharti oo mustaxiil ahayn waxa kale oo shartiya inuu adag yahay in la gaarana waa sharti oo shay la gaari karo weyna waa inuu noqdaa hadaba qodobka labaad ee isaguna shuruuda kamid ah waxa kamid ah waa inuu qorshaha ku noqdaa mid dhameystiran dhammaan qaybaha noloshaada ka kooban tahay oo dhan waa inuu qorshe u dejisaa lama rabo oo kaliya qayb noloshaada kamid ah maaliyadda oo kaliya inaad qorsheyso waxa la rabaa noloshaada qaybo badan bay ka kooban tahay caafimaad bay leedahay dhaqaale leedahay qaybta ruuxaaniyada ee diinta ay leedahay kor u kacsaado u baahan waxa la qaybtii family-ga iyo reerka ay u baahan ay kor inaad u kacsaado u baahan waxa leedahay qaybtii shakhsiyadaada iyo aqoontaada inaad kor u kacso waxa leedahay qaybtii shaqadaada iyo horumarkaaga xagga mihnada inaad kor u kacso waxa leedahay qaybtii adeeg bulshada iyo bulshada inaad wax u qabato inaad kor u kacso qaybahaas oo qorshaagu waa inuu koobsadaa soo qorshaagu u noqdo mid dhameystiran qof baad arkaysaa milyaneer noqday laakiin reerkiisa ku liita oo ciyaalkiisa ka xumaadeen oo runtii nolol fiican aan ku nooleen waxaad arkaysaa qof runtii meel fiican gaaray laakiin caafimaadkiisu aad u liito waxaad arkaysaa qof runtii lacag yeeshay meel fiican gaaray laakiin diin aan lahayn taasoo kale maxay noqonaysaa ma helisid saacada ma helisid waa in waana isu dhameystiran yihiin qaybaha ay qorshuhu ka kooban yahay waana ku dhameystiran shardiga saddexaad waxa weeyaan shaygan aad sameynaysaa waa inuu flexible yahay waa inuu yahay wax runtii muxuu haayay aad bedeli karto oo inta qoraal qorto qorshe ah qoraalkaas uu noqdo mid adag oo jaamid oo la bedeli kareen waa taas looma baahna waa inuu shay aad bedeli karto sababtoo noloshu is bedelaysaa garanaysa bilka bacdi wax dhacaya marka qorshaha waa inuu isla bedeli karo kolba duruufahaaga oo haddii kale waxay kugu noqonaysaa cuqdad inaad qorse dejisay
أنا بدل كرينا أدي نفتك دبي كوكينسا قرشه هو أنو نقدر مد كلها تلاب صدا اسببدل كقرب أدي كوكود عينا وأنا لا صعون كرا شرط أفراد وحويان قرشها لا تصمينسا وأنا قرشه رنتي فضود وانية لفهم كرنا لقد كقري وين فضود هاي وين أدوى فهم كرتو أذكر سوين فهم كرتو وحلا دي هاي إن القرشه هو نقدر واحد ديتيلس آد وفرب بدن أو آد وتفاصيل بدن أو من آد السيسارة الله ما بحنا sababtoo qodobada ugu muhiimsan ee noloshaada la rabo inaad qorsheyso laakiin hadaad wax kasta aad u sii dejiso waad ku daalaysaa marka qorshahaagu waa inuu yahay qorshe aad fahmi karto oo qoraalkiisuna fudud yahay waa inuu noqdaa qodobka runtii shanaad ee inta uu qodobka ugu dambeeya wax weeyaan qorshahaaga waa inaad ka dhigtaa mid laazim ah oo isku waajibisa qorshaha hadaad intaad qortood qurxiso si fiican hadu qurxiso laakiin se aanad adigu naftaada ku waajibin inay samayso meel gaari maysid wuxuu noqonayaa waxaad warqad ku qortay marka waa inaad fulisaa qodobkaas aad buu muhiim hadaba dawada halka waxa inooga soo baxaya nolosha qorshayna u baahantay qorshuhuna aad u muhiim yahay warrantii waxa raba inaan ku soo khatimo muxaa 10keena maanta qiso yar oo muxuu haya dhacday waa dhacdo xaqiiqo ah waa qiso xaqiiqo ah qisadana waxay leedahay nin runtii muxuu hayay in dadka kutubtan ka qoray dadka ah kutubtan muxuu hayay human development wax badan ka qoray oo ku takhasusay muxuu hayay in arimaha caruurta ayaa waxa uu yiri waxaan fuuray diyaarad baan fuulay anigoo markaa ka baxay wadan kamid ah wadanadan carabta diyaaradiiba waxaan kula kulmay buu yiri oo dhinacayga fadhiyay nin Ingiriis ah ninka Ingiriis baan markaan su'aal weydiiyo waan iswareysanayo waxaan ku yiri waxaan ka shaqeeyaa arimaha caruurta ninka Ingiriiska wuxuu yiri hadaba qisiraan kaaga sheekayo ku dhacday aniga iyo caruurtayda laba inaan baan dhalay buu yiri labada inaan dhalay buu wuxuu yiri iyagoo sanadkii mara dugsiga ku jira dugsiga hoose dhexe ku jira ayaa waxaan dareemay waxbarashada inaana daneynin inaanay ku fiicnayn inaanay xiise gelinin arinta ma kan dareemay la sheekaystay buu yiri markii aan la sheekaystay ayaa waxaan ogaaday buu yiri horta inay baabuurta jecel yihiin inay baabuurta aad uga helaan ayaan ogaaday marka waxaan sameeyay buu yiri arin aad u layaab badan waxaan ku yiri waxaad ka warantaan baa ku labada inan baabuurka jeceshiin waa noocee baan ku yiri waxay yiraahdeen noocaas aan jecel baabuurka noocaas waxaan ku yiri ka warama hadaynu tagno meesha baabuurta lagu iibiyo oo soo aragtaan si aad mustaqbalka u iibsataan waxaan waa arin aad u fiican labada inan baan saraxnay buu yiri waxa ka sheekeynaa waa kuma waa ninka Ingiriiska ahaa labada inan baan saraxnay buu yiri waxaan tagnay meesha baabuurta lagu iibinay ninkii baabuurta iibinay baa la hadlay waxaan ku yiri waxaan rabnaa in laba baabuur iibsano ninku nin fiican buu ahaa buu yiri wuu fahmay in aan sheekadooda ay iib dhaba ahayn aan kaliya rabo caruurteedu inay runtii mustaqbalkooda hagaajiyaan ninkii baa radiyaa baan idinka iibiyo caruurtii baan ku soo eegta baabuurta rabtaan labadii baabuur ay rabeen noocay ahaayeen ay soo eegeen mid kasta baabuurkiisa uu tijaabiyay oo fuulay iyagoo aad u faraxsan aad u jeclaysanay baabuurtana haystaan aad arintu ay u xiiso gelinayso arintii markii dhinac kasta baabuurtooda ka jeegareeyeen shookaantii riixeen ay markii dambe aan ku ri ninkii waad mahadsan tahay laakiin sabab waxaad noo sheegtaa qiimahoodu waa mise qiimahoodu waa intaas yiri markaas waxaan ku ri ma ku bixin karnaa muxuu installment haabu yiri saas oo kala bixin kartaan caruurtii ma soo raacnay guriga ma ku soo noqon guriga markaan ku soo noqonay caruurtii waxay aad uga doodayaan baabuurtay soo arkeen aad way jeclaysanayaan caruurtii baan ku yiri in baabuurta ma rabtaan iibsataan haddaad rabtaan iibsataan hadaba baabuurtaasi waxaad idinka baahan tahay inaad wax barashada ku dadaashaan baad ka baahanta oo qiimahoodu waad garanaysaan buu waa intaas deesaad u iibsataan baabuurta waa inaad u shaqaysataan waxaan hadaba maxaan u baahanaa waxaan ku waxaan u baahanaynaa Maria si inuu ogaano baabuurtan qiimahooda maadaama inuu soo ogaanay bal sidaynu ku heli karno si inuu ogaano in Maria maktabada kale library baan tagnay buu yiri library markaan tagnay kaliya waxaan markii ugu horeysay isweydiinay qiimaha baabuurta qiimahooda inta yahay shaqada hadii ay caruurtaasi helaan ay ku heli karaan lacag inta lagu waa shaqadee caruurteedaba waxay baarayaan shaqada hadii ay mustaqbalka ma ku yiraahdaan ay galaan hadii shaqada ay helaan shaqadu ay noqoto mid u goynaysa baabuurta ay rabaan marka library-ga bay ka baareen shaqooyinka ugu fiican Ingiriiska ee gaarsiin kara inay baabuurta iibsadaan shaqooyinka bay helaan oo waxa buugaga ku yaala library-ga ka helaan shaqooyinka noocay ahaayeen waxaan shaqooyinka noqdeen shaqooyin aad u muhiim oo shaqooyinka gaarka ah ee dadka khatarta ay heli karaan shaqadii markay heleen ba haddaan su'aal kale aan weydiiyay waxaan ku ri shaqooyinkan daya gaari kara maxaa lagu gaari karaa baan ku yiri markaas waanu baadno wax lagu gaari karaa inaad haysato shahaadooyin gaar ah oo muxuu ahay aad u sareeya shahaadooyinkiiba hadda wax caruurteeda waxay sii beereen buu yiri shahaadooyinka noocaas ayaa bixiya jaamacada nooceeya jaamacadii bay eegeen
jaamacadii markay arkeen kuwa ay ahaayeen ba haddana waxay sii baareen jaamacadahaasi maxay shuruud u baahan yihiin shuruudii markay eegan ba waxa u soo baxay in darajaad aad u sarsareeya caruurta ay u baahan jaamacadkaas in lagu galo darajaadkii markay arkeen jaamacadiis lagu galay ay waxa ay shuruudii kalena hay eegan ay guriga ku soo noqon caruurtayda markaa maxay soo ogaadeen maxay ka soo ogaan library waxay ka soo ogaadeen baabuurta ay rabaan inay iibsadaan haddii rabaan inay iibsadaan waa inay aqoonta noocaas yeeshaan shahaadooyinka noocaas waa inay sitaan waa inay jaamacadaha noocaas ay galaan shuruudaha noocaas waa inay buuxiyaan intaaba warkaas oo dhan ba iyagu haysta ay guriga ku soo noqon marka soo noqday baan ku hadaba dhageysto soo ma aragtaan shuruudaad ku gaari kartaan baabuurtaasi waa intaas weeyaan oo waxa ugu horeeya imikayna dadaashaan aqoontiina kor u qaadaan si aad darajaad fiican aad u heshaan darajaadka marka aad heshaanna aad jaamacadaha rabtaan in aad u gashaan jaamacadaha marka aad u gashaanna aad shahaadooyinka ugu qaadataanna shaqooyinka aad rabtaan ee isleedihiin waxa idin gaarsiinayaan baabuurta inaad iibsataan aad u gaadhaan dadaal ba caruurta bilaabaan biir muddo dadaalaya wixii caruurtadii maanta way dhameeyeen iskuulkii biimeen jaamacadii laftigooda qiimaha badnaa ee qorsheeyeen bay dhameeyeen biir maanta mid kamid ah wuxuu haystaa branch kamida branchada hudheelada ugu caansan Ingiriiska ayuu mid kamid maamul ka yahay mid kalena wuxuu shirkad aad u weyn oo ku taala bariga dhexe ayuu maamul ka yahay ninkii markaa la fadhiyay wuxuu ku yiri ma iibsadeen baabuurtii ay bariga maxay dalbadeen wuxuu yiri baabuurtii horta qaar kale sii jecladaan biir oo markay gaareen lacagtii ay heleen baabuurtii qaar hore ka sii fiican ayuu mid kamid sii dalbaday mid kalena wuxuu leeyahay dhawaan buu rabaa inuu baabuurkii nooc dalbaday laftigiisii inuu iibsado halka maxay nooga soo baxaya waxay nooga soo baxay caruurtaadu ma kariir yihiin waa inaad hadaf u sameeysaa iyo meel ay gaarayaan waa inaad hadafkuna noqdaa wax cad oo sida lagu gaaray imka kan aan sheegnay sidii lagu gaaray xataa wala isla ogaad oo aabuhu la soo ogaaday caruurtooda hadday rabaan inay baabuurka iibsadaan sida ay ku gaari karaan marka daawada waxaan ku soo khatimaynaa hadaf waa inaad yeelataa qorshe waa inaad yeelataa haddii aad rabto nolosha inaad ku guuleysato intaas aan ku soo koobaynaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh